أنا وجودا وصلنا قاني صاحبها هنا هي صبح ورجعنا يصاب عليه ما أثرنا هذا هي سوق بكارة سؤاله أنا ممكن حافظة شو هي هاي وقف قرني مركي لسه على صاد القبح ما بلنا هي مركي دول القبح أنا حافظة كتجي كارة تجي نال بكارة أو كل مرن أنت جامع جواب بحي هي أو قل مثلا هي كدي بوقت كنا واحد نتربى يعني هي تربى ممكن حد شو يرى أنا وصاحبنا ما يسكن غير شو هي قبل مركي ماشي جيو تلك هذا عبارة أقول له ماشي قولك جي هذا رباعي هذا هيه مكبيلك ماشي أنا كان قد قبل نقول له حارن حاول ما صخر هيه أنتوا قدكم أنا مصفى الجر هذا قميص وهذا كل هذا مشجع الجر سوق وسنة هذا هيه مكان سوق وسنة قبل كبير أنا متشجع هيه مركان متشجع سوق وسنة وكسب حي كسب قبل هو ciidanka booliiska saldhigga degmada Cadaado oo kaashanaya nabad sugidda Galmudug ayaa xalay xilli dambe howlgal qorsheysnay oo ay ka sameeyeen xaafadda Karaama ee magaalada Cadaado waxa ay ku soo qabteen Maxamed Ibraahin Cusmaan oo ku eedeysan inuu qayb ka ahaa dilka marxuumad Xamdi Maxamed Faarax oo dhawaan lagu dilay magaalada Muqdisho kadib kufsi loo geystay Maxamed oo hadda ku jira gacanta booliiska Soomaaliya isla markaana la filayay in la geeyo magaalada Muqdisho oo markii hore uu ka soo fakaday kadib dilkii Xamdi ayaa waxa ay booliiska Cadaado sheegeen in qabashadiisa ay u fuudeeyaan shacabka reer Cadaado xog ay ka heleen taliyaha booliiska degmada Cadaado laba xidigle Cali Maxamed Xasan ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay kiiska eedeysan Maxamed Ibraahin Cusmaan kiiskaas markaan ka helay information iyo amaamir taliskeena good nanu hawlgalnay si dhab ah aan isku daynay in yaawd inaan wax ka ogaano waxa soo galay degmada iyo waxa ka baxaya iyo waxa ku dhex jira dhammaan hawlgelinay ciidamada booliska Soomaaliyeed waxa noo soo ragashay 24 saac kadib inaan gacanta ku soo dhigno eedeysane Maxamed Ibraahin Cusmaan oo ah ninka lagu eedeynayo inuu ka dambeeyay falkaas xanuunka badnaa ee ku dhimatay حمدي محمد صالح حمدي محمد فرح إلهي ما هذا سكله إلهي ما هذا سكله مرولبا وعرب أنا هذا عليه سراكيش عيدن كبوليس كصوماليات حكتاس آديات فرميشن كنوسيني أمامير نوسيي